مضينا للدراسة كل يوم نشد السير في أمل وعزم فقلدنا التخرج تاج حلم بلغنا في تقلده المعالي ففي قسم بسم الله الحمد لله ودرسيغي افراد ee koorsadii sidee loo dhisaa website fariya iyadoona lagu dhisayo software caanka ah WordPress darsigii hore wuxuu inoo marayay inagoo soo dhisnay soo sameynay maxaa la yiraahdaa menus iyo category oo isna dib aan ka sharxi doono waxaan markaan maraynay marka pages muhiim ah oo laba xabo ayaan ku soo dari doonaa halkan kuwaas oo aan ugu talagalnay si maxaa la yiraahdaa mid adiga lagu la soo xiriirayo kugu saabsan iyo mid adiga aad sharaxaad isaga bixinayso wuxuu website-ka ku saleysan yahay inta badan waa aragteen website-yada qaar maxaa la yiraahdaa kuwa carabi oo kala ma naxno oo inta ku qoran qaar waxay ku qoran tahay kuwa ingiriiska about Soomaali nagu saabsan waxyaabo saas ah ayaa ku qoran marka hadda halkan ayaan maraynay waxaan insha Allah tacaala aadi doonaa cidii xusuusta plugin-skii aan ku duubnay haday ayaan insha Allah tacaala halkan ku soo dhisi doonaa plugin-skii haday wuxuu inoo marayay annagoo halkan marayna waan ku duubnay asaga ayaan insha Allah tacaala si toos ah u aadi doonaa wuxuuna sii doonaa sida hore uu soo sheegay code si toos ah u tageena marka asaga saldhigiisa oo halkan ah contact forms ayaan leenahay waa aragtaan halkan wuxuu nagu siiyay wax loo yaqaan shortcode kan ayaan qaadeena waxaan maxaa la yiraahdaa ku sameyn doonaa page-kii haday ee ahaa fadlan nala soo xiriir sida halkan ka aragtaan nala soo xiriir page-kii ahaa ayaan insha Allah tacaala maxaa la paste ku dhigi doonaa copy shortcode kan wax badan ayuu ku dhisan yahay waa aragtaan waxaan tageena qaybta hadda waxaan joognaa visual ayaan joognaa waxaan tageena marka hadda qaybtan ayaan joognaa textiga ayaan tageena paste ayaan halkan ku leenahay sida aragtaan halkan ayaa code-ka ku sugan code-kan marka hadii aan sharaxaad yar idinka siiyo qaabka uu u dhisan yahay wuxuu u dhisan yahay maxaa la yiraahdaa qaab oo magac geli gmail-kaaga lambarkaaga geli kuma tahay maxaa ay la soo xiriirto waxyaabahaas oo dhan ayuu ku saabsan yahay marka sidaan markaan u sameeyno waxa kaliya aan sameeynaa waxay tahay inaan niraano publish mala soo xiriir ayaan niri code-ka ee halkan gelinay publish ayaan niri markaan publish dhahnay waxaan aadaynaa marka menu-ga si aan isaga menu-ga ugu soo darno menus kan xirobal halkan waxa ka aragtaan pages posts custom link iyo category pages asaga halku ku jiray pages sababtoo waa page anaga haday waxaan soo dhisnay page maana soo dhisin category bas ee maxaa la yiraahdaa custom link soo ma dhisin halku ka soo muuqday waa aragtaan nala soo xiriir add to menu halkan ayuu imaanaya insha Allah wuu soo galay kaliya maxaa ku xiga save menu waaye page-keena nagay halkan ayuu ka soo muuqanayaa maasha Allah gudihiisa ayaan ku dhufaneynaa asaga ayaan jigsiinayba maasha Allah muxuu ku soo baxay sida aragtaan your name magacaaga geli email-kaaga geli maxaa la yiraahdaa subject message-kaaga dabcan hadda cadaan badan ayaa inta ka muuqdo waxa laga yaabaa in arki weysaan laakiin meeshan hadda hadii aan tusaale qoraal badan ku qor waa aragtaan meesha magac la gelinayo saasoo kale meesha email-ka la gelinayo saasoo kale meesha subject-kaaga message-kaaga waxyaabahaas oo dhan meesha ay ku qoran yihiin ayaa halkan waayahay waxa kale marka shardi ah inaan soo dhisno page aan ula jeedno maxaa la yiraahdaa nagu saabsan meelo badan hadda website-yada qaar ee Soomaalida waan ku arkay marka page nagu saabsan ah ayaan soo sameynaynaa insha Allah marka waxaan aadaynaa maxaa la yiraahdaa dhanka iyo pageska ayaan aadaynaa si aan mid cusub ugu soo darno sharaxaadna aan anaga isaga bixino nagu saabsan dabcan hadda
intaan ayay ka dhigan tahay nagu saabsan, annaga wax nagu saabsan waaye. waxaa rabta ayaad ka dhigan kartaa marka kulleeda hadda wax kugu saabsan. halkan waa website si bilaash ah cilmiga. dabcan hadda waxaad dareemaysaan qaybtan textiga inuu iga joogo, laakiin halkan ayaan tagayaa oo farqi sidaa usii weyn uma dhexeey. laakiin halkan linkiyada iyo waxyaaba saas ayaa la geliyaa. halkan ha inoo joogo. halkan waa website si bilaash ah cilmiga looga barto, marka kusoo biir ayaan leenahay. waayahay, markuu sidaan yahay waa page, ilaan wax kaloo intaa dheer loo dhaafsiin karo ma lahan. haddii aa u baahan tahay sawir ayaa iska soo gashan kartaa oo adiga kugu saabsan. sawirkan ayaan soo gelinaynaa insha allahu tacaala. pagekii ayuu kasoo muuqan doonaa. qof walibana markuu is yiraahdo nagu saabsan ninkan maxaa ku saabsan oo asaga eh, markuu kusoo raadiyo waxaad qaybtaas ka siinaysaa macluumaad dhammaystiran oo kugu saabsan adiga, website-kaaga, waxaa u dhistay, waxaa qabatid, hoolahaaga, cid alaal cidda kula shaqayso. halkan ayuu sawirka kasoo muuqanayaa. marka si tan hoos aan geyno, sawirkan xoogaa aan weyneyno inuu yaraado laga yaaba. sawir iska baaxad weyn waaye, yuusan asna tayadiisa iga xumaan. aan sidaan iska iraahdo. marka intaan way ugu filan tahay. publish ayaan leeyahay. pageka ayaan hadda ku darnay, laakiin waxaa dhiman dhankaa iyo menuska kuma jiro. menuska ayaan aadaynaa, waxaan kusoo dareynaa menuska si halkaas uu uga soo muuqdo. dabcan waa aragtaan nala soo xiriir ayaa ugu dambeysay. waayahay, waxaan soo dhisnay pages ayaan soo dhisnay. si toosa ayaa aragtaan waa uu kasoo muuqday nagu saabsan. add to menu kasoo bax halkan, kadib save menu. waa uu seefmay, si toos ah ayuu u seefmay. haddii aynu fiirino pagekeena tijaabo, maasha allah si toos ah ayuu markaan u buuxsamay. hadda annaga iyo websiteka goobjoog waan simanahay, wax waliba waan ka simanahay. marka muxuu yahay category? muxuu yahay category? waa shayga ugu muhiimsan ee marka aad rabto inaad maxaa la yihahdaa dhisato news ama wax waliba markaad soo boosti garanayso. boostiga meesha aad kusoo qorayso. hadda kolley markaa facebook gashid waa aragtay bilowga hore wuxuu ku siinayaa qaybta meeshii wixii aad ku qori lahayd. mar walbana wixii aad qorto waa ay sii soconayaan, ha kaa dhex galaan wax dad lasoo dhigo ama wax adi aad soo dhigtid un meesha wada buuxsamaan. marka kuwan hadda ma ahan page, maxaa la yidhahdaa waa dhammaantooda marka 1 2 3 4 5 6 7 labadan waa pages, kanna waa page. intaan kale laakiin waa category waay. category waa haysanaa, pagena waa haysanaa. hadda marka tusaalo wax aan soo boosti gareyno, wax muhiim ah ayaan rabnaa inaan soo boosti gareyno. dashboardkeyga anigoo joogo ayaan waxaan aadayaa postis ayaan tagayaa, add new ayaan leeyahay. add new markaan iraahdo halkaan sidaa ka aragtaan add title. waxaa laga yaabaa websiteyada qaar inta badan waxaa ku dhacda rag akhyaarta markay soo dhistaan qaybtan kama soo muuqato. qaybtan hore aad bay u adag tahay markii kaasoo muuqan weyso. mid waxaa kuusoo muuqanaysa original wordpresska uu leeyahay runtii aada u qaab daran oo aadan ka helinin qoraalkeeda iyo wax walbo. marka waxaan kuula tali lahaa inaad aado dhankaa iyo pluginiska, aad add new dhahdo, kadibna aad soo doorato pluginiska uu ku qoran yahay, classes editor uu ku qoran yahay, soo raadi, kadib ku install garayso. marka hadda halkan wax ayaan soo boosta garaynana, waxaan aadaynaa insha allahu tacaala. marka hadda qoraal badan inaan hadda waqtiga qorno, darsiga daqiiqadii soo koobnaa rabnaa. qoraal badan inaan hadda qorno waqtigaas ma sameyn, laakiin waxaan raadinaynaa qoraalo maxaa la yihahdaa diyaarsan oo waxaan ka raadinaynaa insha allahu tacaala maktabadda soomaaliyeed. maktabada.com ayaa ku qoran. runtii waa maktabad aada faa'iido u leh dhaxalka iyo maxaa la yihahdaa qoraalada soomaaliyeed oo dhan ay ku jiraan, haddii ay yihiin diini, haddii ay yihiin sidaasoo kaleeto gabayo, taariikhda soomaalida wax waliba ku salaysan. maktabadan waa ay ku ahaadeen, aad ayay u fiican tahay. maktabada af soomaaliga qoraal ayaan rabnaa inaan kasoo koobiyeysano. marka waana ogow mana fiicni inaad websitedada inta gashad qoraal kasoo koobiyeysatid, laakiin anaga hadda keliya waxaan u suubinaynaa tijaabo. ilaan websitekeena ayaaba tijaabo ah. marka siduu u tukan jiray nabigeena sala allahu calayhi wasalam waa ciwaan qurux badan. 40 xadiis
qeexida kooban ee ku saabsan islaamka kana u baahanahay markaan galno sida halkan ka aragtaan qeexida kooban oo ku saabsan islaamka kani waa ciwaanka koowaad wuxuu noqonayaa halkan ayuu noqonayaa title meesha ku qoran tahay ayaanu bast ku leenahay waa qeexida kooban oo ku saabsan islaamka ilaahu sahal sawir islaamka ku saabsan ayaan raadinaynaa oo qurux badan islaamka sawir islaamka kuwaan geelka wato sawir waa kanaa sawirkan aad u qurxan yahay oo maasha allah sawir tayo lehna waaye safe ayaynu leenahay safe image as away safe image as meesha aan rabo ayaan hadda markaan ku seefanayaa halkan ayaan ku seefanayaa wuu igu jiraa dabcan sida aan dareemayo marka waayahay qeexida kooban oo ku saabsan islaamka ayaan haysanaa marka qoraalkii hoose qoraalkan oo kaleeta meesha uu ku qoran yahay ayaan koobi soo leenahay ilaa intaan oo kale nagu filan oo badsane maasha allah waxaan dul imaanaynaa halkii aan wax ka boosti gareynaynay best ayaan ku leenahay dabcan kulley hoosta hoos ka galay waa qoraalka ayaga si usoo diyaariyeen marka hadhow insha allahu tacaala inuu kala bixi doono ayaan insha allah tacaala rajeynaynaa marka bilowgan hore waxaa muhiima marka inuu ku jiro sawir kasoo muuqanaya sida hadda tusaale markaan galno goobjoog puntland oo amara dul dhigtay dadka hubka sitaa waa aragtaan sawirkan kore muxuu yahay sawirkan haddayna waa arkayseen bilowga hore isla sawirkan ayaa ka muuqday marka isla ayada ayaan insha allahu tacaala sameynaynaa waa aragtaan marka halkan ayaa soo gaaraysaa meesha ay ku qoran tahay set ayaad ku dhufanaysaa waxaad raadinaysaa marka upload ayaad leedahay waxaad soo gashanaysaa sawirkii aada u baahnayd taariikhda islaamka waa tanaa dabcan set ayaad leedahay imageka halkan ayuu kuusoo galay maasha allah waa aragtaa marka category waa tana waa shay muhiima category halkan ayaad ka fahmaysaa inta badan hadday waxaa laga yaabaa sharxaad badan inaa kaa siinaya inaada fahmin marka hadda halkan waa muhiim halkan si fiican ayaa ufahmaysaa marka boostigan hadda aan qorayno ama aan diyaarinayno halkeen rabnaa inuu kasoo muuqdo ma waxaan rabnaa inuu kasoo muuqdo gudaha kulley home markaan raana home halkaanaba noo soo baxaya kulley hadda aragtaan hadda ku dhufto waa aragtaan isla halkaan uu kusoo noqonaya sababtoo ah linkiga aan gelinaya wuxuu ahay http waxaa la yihahdaa / tijaabo.ebase.com oo ah linkiga maxaa websitekan lagu soo gala ayaan gelinay marka gudaha muu kasoo muuqanaa caalamka muu kasoo muuqanaa maqaalo muu kasoo muuqanaa sawiro barnaamijyo gaar ah halkan ayuu khiyaarkaasoo dhan ka jiraa waa aragtaan marka hadda waxaan rabnaa inuu kasoo muuqdo waa shay gudaha ku saabsan ko islaamka waa gudaha waa shay inaga noqosay waa maqaal wuu dheeryahay maqaal sidaan u dheer war ma ahan sawiro ma u baahnin barnaamijyo gaara ma u baahnin caalamkana ma u baahnin iska dhiba xataa caalamka waa dunida islaamka muslimiin badan caalamka ku nool marka imagena hadaya ayaan soo gelinaa keliya markaa wax nagala baahan yahay waa inaan publish nirahnaa wuxuu insha allahu tacaala si toosa uga soo muuqan doonaa qeyb ka mid ah websitekeena darsigan dabcan inuu igu dheeraanayo ayaan filayaa laakiin waxaan kusoo koobayaa markii uu kan inoo galo oona inoo soo noqdo insha allahu tacaala waayahay hadda wuu soo laabtay waa aragtaan aan bagekeeni marka f9 maxaa la yihahdaa f5 ama maxaa la yihahdaa fresh sida aa jeceshahay dheh ana marka home ayaan ku dhufanayaa si qofka markuu soo galo home markuu tago uu arko wixii ugu dambeeyey ee lasoo post gareeyey maasha allah waa aragtaan breaking news maxaaba kusoo baxayba qeexida kooban oo islaamka ayaa kusoo baxay waa kan marka hadda halkee kasoo muuqanaysaa gudaha markaan tagno waa ku arki doonaa caalamka markaan tagno waa ku arki doonaa maqaalo markaan tagno waa ku arki doonaa sababtoo ah annaga ayaa soo dooranay halka ay ku jiraan waa aragtaan gudaha markaan tagno wuxuu kusii jiraa qeexida kooban oo ku saabsan islaamka asaga ayaan kusii dhufanaynaa insha allahu tacaala isagoo waafiya oo ballaaran oo qurux badan ayuu halkan kasoo muuqday sidaa aragtaan waxaana lasoo geliyay 11 September qeexida kooban oo ku saabsan islaamka
waatan halkaana ka aqrisanaysaa markaad dhamaysatid waa kaasa muxuu intuu kaloo ka muuqdaa caalamkuu kasoo muuqanayaa maqaalo uu kasoo muuqanayaa oo aragtan home maxaa yihahdaa to maqaalo marka darsigeena intaas ayaan insha allahu tacaala kusoo gabagabeynayna waxaynu balana darsigan darsiga xiga oo isna aan insha allahu tacaala qayb kamid ah dhismaha website-kan ku qaadan doono